بسم الله السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشا قيمها لي كسو دوادا جنال كان اللياب كالدونيدا فضلا هدية مركي كوريسي اتسابوغتو جنال كان سبسكرايب صار هدية كيشي موقال كان اللايك صار ونسي شركري أصحاب تادا مهدسنid dunidan aynu joogno maalin walba wax baa lagu arkaa oo cimri qaadasho mudan dalka Hindiya waxa ku nool gabar aan lahayn san iyo indho iyadoo takhaatiirta u waabeen dalka Hindiya ay u sheegeen qoyskeeda in aysan waxba ka qaban karin xaaladeeda caafimaad qoyda khaatun waa 21 jir ku nool dalka Hindiya indhaheeda sankeeda iyo afkeeda waa kuwa ay isku dhagan yihiin iyadoo waxba aan arag waxba aan orin sida ay sheegeen qoyskeeda dhanka kale hooyada lagu magacaabo Amina Bibi ayaa saxaafadda u sheegtay in gabadheeda Khadija Khatun ay cudurkan ku dhalatay markii hore dalka Hindiya waxba loo qaban waayay caruur mucjiso ah oo ku dhashay isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho maalin Arbacada bishii sanadkoodii 2013 hooyo Soomaaliyeed ayaa isbitaalka Banaadir ku dhashay laba wiil oo mataana ah oo midkood uu aad u caafimaad qabay midna uu dhashay isaga oo aan madax iyo gacmo toona lahayn wiilka dhashay isaga oo madax iyo gacmo toona lahayn ayaa waxa uu ahaa mid noona kala neefsanayay qayb yar ay ku duleeshay wadnaha korkiisa iyadoo waliba tooba ka soo baxsaneed halka uu ka neefsanayay mucjisan oo ahayd mid aad dadkii ku dhawaa ama la kulmay ay u arkaxeen ayaa waxa ay dhacday sanado ka hor iyadoo saacado kadibna cunugii yaraa geeriyooday waa markii ugu horeysay oo la arkay taariikhda Soomaaliya cunug isagoo aan madax lahayn dhasha iyadoo ay iska jiraan mucjisooyin kala rabbaaniya ninka dunida uu afkaweyna oo record cusub dhigay Danish Abdaya oo dhashay dalka Hindiya ayaa loo aqoonsaday inuu yahay ninka uu afkaweyna dunida inta la og yahay waxa uu ninkan afweynin kaga guuleystay nin ka soo jeeda dalka Mareykanka oo hore u haystay recordkaasi ninkan oo ah macallin ayaa in muddo ah ku haminayay inuu kaga guuleysto inuu noqdo ninka dunida uu afkaweyn oo sidaas ku dhigo record cusub waxaana hadda ninkan loo aqoonsaday inuu yahay ninka uu afkaweyn ee dunida iyadoo dad badan la yaabeen waxa uu afkiisa gelinayo marqora recordka cusub uu dhigay ninkan ayaa u suurtageliyay kadib marka uu afkiisa marqora geliyay saashan ilo xab oo qalin beesal ah waxa uu sidoo kale ninkan hal mar geliyay afkiisa 5 xab oo ah kubadda ciyaarta golfiga lagu ciyaaro ninkan uu dhashay dalka Hindiya ayaa record shakhsi ah uu afkaweyn dunida uu guuleystay Todd Defense oo dhashay dalka Mareykanka oo ka guuleystay recordka afweyninka dunida sanadkii markuu ahaa 2010 ciyaartoy u dhashay Israa'iil ayaa galay recordka ciyaartoyda ugu da'da weyn ee dunida ka qayb gala ciyaar caalami ah isagoo jira 73 jirka Isaaq Hayek ayaa jimcihii noqday goolhayaha kooxda lagu magacaabo Irana oo Yahuudi oo ka dhisan Israa'iil waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu dheelo ciyaar kale kadib marka uu dhameystay 90 daqiiqo oo ay ciyaartu socotay Isaaq Hayek ayaa markii ciyaarta ay dhamaatay xaflad lagu qabtay garoonka ayaa waxa lagu guddoonsiiyay abaalmarinta recordka ciyaartoyda ugu da'da weyn Hayek xilli uu kubad qabanayay inkastoo kooxdiisa lagu badiyay 5-1 ninkan ayaa kooxdiisa ka badbaadiyay goolal badan oo ku soo socday shabaqa talaabada ma ahan oo kaliya sharaf aniga ii soo hoyatay balse waxay sharaf u tahay guud ahaan bahda kubadda cagta ee reer Israa'iil ayuu yiri Hayek oo la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters Moshi Hayek oo 16 jir ah ahna wiil u dhalay ninkan ayaa uu ku tilmaamay guusha aabiisa mid aan la rumaysan karin maantana waxaan jecelnahay halkan inaan ku soo gunaadno barnaamijkeeni tan iyo kulanti dambe xiiso leh waa anigoo Cabdixakiin Nuur Axmed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.